بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد راس أصور لي بودكا شعبك افتين شعبك iyo casharadii socday waxa uu dambeeyay PCM ama Project Cycle Management ama sida loo maareeyo mashaariicda oo meertooyin kala duwan lahaa hordhacyo badan ma sameynay qofkii raba inuu la qabsado casharadii hore ama ha dalbado ama ha ka galo iftiinka shacabka Facebook page aan ku leenahay waa tahay maanta waxaa bilaabanaya cashir aan ka yar dardaarmayno oo yar guda dheer laakiin aan iska soo koobayno si mal aqliga guud inuu muhiimadda uu leeyahay loo fahmo qofkii sii qaadan doonay wuxuu u baahan yahay ugu yaraan dhowr casho oo seminaara ama hal koorsi oo 6 bilood laakiin inta yar hadda 10 daqiiqo aan soo koobi doono inuu u baahan yahay inuuna u baahnayn macnuhu uu sameynayo unbaa meesha ku jira inaad lagu baraarugo halkaas kala qabsanaysaan insha Allah. Assalaamu calaykum mar kale waraxmatullaahi wabarakaatu. Logical Framework Matrix ama Log Frame mashruucii dhannaa ee la diyaariyey ayaa halkaa warqad keliya lagu soo koobaya daraasadiisi ha noqoto dhibkii la xalinayay ee lasoo dhiraandhiriyey ha noqoto ujeedadii loo sameynayay ha noqoto ujeedooyinka marba mid la gaadhaya iyo ta u dambaysa ha noqoto activities ha noqoto marka yani shaqada la qabanayay inputkii wixii la gelinayay shaqadaas aad arkayso waa laba dhinac waxa weeye waxay ka kooban tahay vertical intervention oo sidaas ah iyo horizontal intervention iyo sidaas macnihii overall objective-ka waa ujeedada guud ee mashruucu gaadhaya marka u dambaysa ee la dhammaystiro marka ujeedada guud halkan waxaa lagu xusay oo corresponding line-keeda x-ka halka waxaa la gelin ujeedada guud waxay tahay sida loo dhiraandhirinayana waan arki doonaa objectively verifiable indicator OVI waxa weeye ujeedada guud in la gaadhayo in kaleeto maxaa lagu caddayn karaa halkaasaa la gelin wixii lagu caddayn indicators of success oo dhan baa ka mid ah okay caddayntaas source of verification xagee laga heli caddaynta halkaa la gelinayo xagee laga heli weeye meelhay ku qoran yihiin reportyadeed la diyaarinayaa waqtiyadeed la heli karaa iyadana waa in halkaa lagu qoro assumption iyo risks waxaa weeye halkaa waxaa la gelinayaa ujeedadii guud ee la yidhi mashruucu markuu dhammaado waa la gaadhay waxaa garab socdo oo aad leedahay waxaan ka soo qaadayaa waxyaabaha nooca nabadda waxbarashada caafimaadka haddaad adigu matalan beere ka shaqaynaysa inay dhinaca kale dad ka wadaay jiraan waxaan qiyaasayaa inay jiri doonto dowladdu igu taageerto waxaan qiyaasayaa inay maaragtay dadku ay garab igu siin doonaan waxa inaan u qabto marka assumptions bay waxaasoo dhan noqonayaan riskiskana waxaa weeye dhibaatadooyinka intaa la eg baa carqalad ku noqon doona inkastoo ujeedadii la gaadhay ama la dhadhaweeyey ogaada riskiga intaa la eg baa mar walba jiri doona marka sidaa shaxdaa loo buuxinayo talaab inuu arki doonaa isla maanta waa ujeedadii guud project purpose ujeedadaas mid ka sokayso oo ujeeddo ah oo tan ka sii yar oo marka horeba la gaadhayo ayaa iyadana sidii oo kale loo buuxinaya expect result marka la geliyo input shaqaale beero dawo maxaan ku idhahdaa midho saacado lacago cayafiyo waxaa marka la geliyo su-aal cad baan qaadan doonaa natiijada ka soo baxaysa ee u horeysa kuwana saas ayadan intaasoo dhan baa saa loo qiimeynaya marka aynu eegno inaan iska tirno mar kale waan isticmaali doonaa shaxdan waxaa weeye log frame buu noqonayaa marka mashruucii dhannaa ayaa la gelinayaa shaxdaas hal warqad horizontal
iyo vertical behavior si fiican baan u arki doonaa. Okay, halkan waxaa ku yaala meanskii. Marka in activitieskan la gaadho, activitygan in la gaadho, sidii lagu gaadhay meanskii lagu gaadhayay muxuu yahay? macnaheed waa means waa sidii yani dad baa la shaqaaleyn, qalab baa la keeni, heshiisyaa la geli, waxaasoo idil meanskii weeyaan. costgan kharashkii ku baxayba mid waxaasoo idil loo qiimeynaya. preconditionku waxa weeye waxyaaba laga maarmaana in la gaadho marka hore inta aan hawsha laba qabanin oo kaba horeysaba, oo dadku inay diyaar u yihiin, dowladdu inay heshiis diyaar u tahay inay saxedo, qalabkii localkii loo baahnaa in la heli karayo oo aan maaragtay hadhow la waayi doonin lagu xisaabtamay. waxyaabahaasna waa preconditions, idan halkaas lagu wada qori doonaa. marka aynu fiirino hadda tallaabadan ka xigta. tusaaleynu marka qaadanaynaa maanta ideal intervention. ideal intervention waxa weeye waxaan ka howlgelaynaa tuulo yar. tuuladaa yar saan u howlgelayno. interventionka waa howlgeladii. idealkan waa mid tusaale loo qaadan karayo, yani sida ku wanaagsan ay hawshaas ku hirgasho. tuuladaa matalan waxaa ka jira hay-ad la yidhaahdo oo ka shaqeysa biyogelinta wash, caafimaadka biyaha ay ka shaqeysa. waxaa kaloo jirta mid ka shaqeysa baa la dhaha private school bay ka shaqeysa, yaa tuuladii joogta. private schoolada ama shacab yar ha noqdo ama macalimiin iskaashaday ha noqdaan, kuwa gaara waxay dowlad gelinaysa wax kaloo dhan baan ka hadlayna yaa ka jira. waxaa ka jira businessyo alaabta keena, xoolaha keena, midhaha iibsada oo iyana isku filan yihiin tuuladaas. waxaa kaloo jirta peace regulations, qolo nabadgelyada ama odayaal ka kaashadaan ama deal yidhaahdo oo iyana nabadgelyada guud ka shaqeysa. waxaa kaloo jira qolo beeraha ka shaqeeya oo la dhaho. waxaa kaloo tuuladaa jooga kuwa caafimaad ka shaqeeya, clinic yar iyo waxle. kuwa dadka cuntada gargaarka degdeg iyo waxaa ka caawiya food security, food aid, yani caawinaada cuntada iyo ayagana jiro jiil la yidhahdo. intaasoo hay-adood baa meeshii jooga, a b c d e f g. adigina waxaa rabtaa inaad kusoo biirtid. marka adiga waa kuka marka h baata, you are here. adiga NGO baan kasoo qaadnay, macnaheed waxa dowladda ma wadno tusaalaha. NGO-gaagu wuxuu ku talagashan yahay inuu food security ka dhiso. food aid iyo food security maxay kala yihiin? food aid iyo food security. food aidku waa dadkii oo caawinaad degdeg la siinayo, emergency stage iyo recovery iyo ku jira, waan soo aragnay. food security-gun waxa weeye dadka cuntadoodii say cunto helayaan ama shaqaa loo samaynayaa ama waxay beertaan oo production ah oo cuntadii ahaa loo samaynayaa ama suuq geyn ama waxyaabahaas oo idil baa food security laisku yidhahda. marka adigana taasaad ku talagashan tahay. haddaba su-aalaha ka hor yaalla ee la raba inaad tuuladii markaad tagta adoo stakeholderkan oo idil la kaashanaya iyo shacabkii aad ka jawaabto waxaa weeye, maxaan u dilayaa ujeedadan food aidka? kow waa inaad taa ka jawaabi karto ama dadku kaala jawaabi karaan. waa maxay ujeedada oo kooban? what activities, shaqooyin noocee baan qaban doonaa? marka yaa stakeholder iyo stakeholder dadkii xusaysoo dhan wey. yaa igu caawinaya oo gacan iga siinaya? who will not support, yaa ka hor iman doona mashruucan? stakeholderka qaar adiga jealous ka ah ama ka xun waxaad samaynayso, wixii waxa u eg samaynaya ama damacsanaa baa jira, marka qulub bay ku gelin karayaan, power bay kugu leeyihiin. mar walba si joogta ayaa hawshan aan uga maarmi doonin oo gacan siinaya ku dhex jiri doono. yaa hal mar laga yaaba inaan u baahdo? stakeholderka oo dhan baa laga hadlaya. mashruucaasi mahana qaadi doonaa gacanta dadka, ku hana qaadi mise weligii inuu input la geliyo oo wax lagu guro unbuu u baahanaya. waxyaabaha kale ee aan samayn karayo aan mashruucan ahayn muxuu yahay? marka what are risks, waxa khatar ku ahna in mashruucaas hirgalana waa maxay? waxyaabaha aan kasoo qaadi doono inay laga maarmaanta inay cid kala qabato oo mashruuca ujeedadiisa guud si loo gaadho ay iman doontaayna waa maxay? tuuladii baad tagtay, waxaan oo dhan oo daraasada ayaad kasoo samaysay. markaas will be involved in the monitoring, yaa kormeerka ka qayb qaadan, yaa cabiri doona inay lagu guuleystay in kaleeto. su-aalaha inun baan kasoo qaadnay aad bay u fara badan yihiin.
okay marka dhexgelidii u horreysay dhexgalaysay dadkii baad warsan tuuladii baad warsan odayaashii aqoon-yahankii iskuuladii dowladdii ciidanka wixii meesha joogay wixii stakeholder oo dhan baad soo warsan dhibaatooyinkii baad ay taxayaan marka mid walba dhibaato kuu sheegay dhul boob baa meesha ka jira lagu yidhi sharciga oo aan la isku xukumin baa jira cunto yari baa jirta colaad joogta ah baa jirta niyad jab badan baa jira webiga oo aan laga faa'iidaysto tuulo yar oo webi maraysa qalaafo kale baan dhahnaba matalan wey webi baa ku yaal webigiina lagama faa'iidaysto qax joogta ah baa jira caajisnimo badan baa dadkii qabaan suuq la-aan baana jirta haddaan wax soo saari lahayn caafimaad iyo iskuul la-aan baa jirta ama xumo roobka oo yar macaluul iyo gaajo fara badan qalab la-aan maamulka oo liita abuur dalag oon jirinba wax yani la abuurto dalagii yaan la helaynin intaa iyo inka badanba yuu dhibkii yuu noqday marka dhibkii noocaas ahaa ma jahaysna problem buu ahaa problems marka mid keenaya ilaa la garta mooyaane lagumaba dhaqaaqi kara hal tallaabo lama gedii karay marka problem 3 baan u bedelaynaa hadda waxaa soo baxday marka la ableeyo ee dhinac walba laga eego inay afartaasi aasaaska yihiin dhibaatooyinka aan sheegin kow waxa weeye abuur ama dalag la-aan baa meesha taala haddaan wax beeri lahayn labo webigii oon laga faa'iidaysan karin lama xidhi karo kanaala lama samayn karo qalabkii ma haysan matooro ma haysan lama saari karo webigii wuu iska khasaaraya uuna dhaafaya caafimaadii iskuul la-aan oon jirin iyo maamulka oo liita meesha ka jira awood iyo sharci ilaalin iyo waxbaba lahayn afartaas markay aasaas noqoto mid walba midkan uu keenayaa marka abuurka oon jirin waxaa imanay qalab la-aan abuur ma jiro qalabna ma jiro hadda abuur la helo qalab yaambooyin hataa yaa la raadsan lahaa webiga oo aan laga faa'iidaysanin waxaa weheliya roobkii oo yar caafimaad iskuul la-aanta waxay dadkii ma joogayaan markii ilmuhu iskuul u gaadho waa laga yaaba tuulo kale u qaxa magaalo kale ama wadankaba ka baxa qaxooti joogta maamulka liita wuxuu keenayaa marka sharciga oo aan laysku xukuminba oo kuwan haddana midayaha kuwanay keenayaan marka qalabkii oo yar iyo abuur iyo dalag la-aan un jirin cunto yari baa meesha iman mar walba baahi baa loo baahanaya sababtaas hay-adahan gargaarka uun bixinaya ayay u joogaan roobkii oo yar wuxuu keenay dadka inay caajisaan oon qalab waxba falan karayn colaadii sharciga oon laysku xukumin waxay keeni colaad joogta ah in meesha ka dhasho caajisnimadii waxay keeni suuq la-aan oo dee yani cunto yaradii suuq baan jirayn dhulboob baa imani dhulboobkii iyo suuq la-aantii iyo cunto yaradii waxaas dadka way niyad jabayaan marka meesha lamaba degdegaanba ma ahaanaysa rasmi markaa kadib dadkii macaluulayaan oo gaajadan aad aragtaan ay ka muuqanaysa marka dhibaatooyinka isku dhex yaacsanaa markii hore marka la jiheeyo problem 3 loo jiheeyo khabiiriintu dhex galaan boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 boqolkiiba 70 inay tan run noqonaysaa macnihi rag baa lala kaashaday waa la ableeyay wey sida daraasadaha loo sameynay bilowgoodana waa ka faa'iidaysan kartaa waa ka mid waan arki doonaa iyadana daraasadaha sameyntooda marka maxaa marka ku xigaya marka hadda dhib baynu taxnay aad u fara badan dhibkiibaa waxaa laga dhigayaa marka positive ama yani wax dhisan wax dhib uga waa wax ku hagaajinaya ayaa laga dhigayaa marka afartii dhibaatay asaasiga ahaa tan waxay ahayd dalag iyo abuur la-aan waxay noqon marka haddii dalag iyo abuur joogtaa la keeno halkaasoo maaragta tallaabooyinka kale isma keenayaan webigii haddii la xidho haddii laga faa'iidaysto haddii cagaf la keeno haddii matooro la keeno iyadana wax laga faa'iidaysan karayo caafimaad iyo iskuul fiican oo loo helo dadkii waxay u baahan yihiinba waa in maaragta hawshaana la hagaajiyo maamulkan liita ee tabarta daran ee wacyigiisu hooseeya waxba qaban karin ee dadkii dhulboob in ay gaadhaan dhulkii oon la tabcanaynin la boobayo maamul wanaagsan in haddii la sameeyo soo hagaagi mahayaan yes saasaa laleeyahay marka objective buu isu bedelayaa marka midba mid buu keenayaa qalab badan baa la keeni roobkii maaragtay laisku halaynba maayo marka webiga haddii laga faa'iidaysanayo caafimaad iyo iskuullada hadday yaraadaan dadka way joogi iskuullada carruurta geystaan bay heliyey qaxi baa istaagaya maamulku wuxuu keeni sharcigii oo laysku xukumo qalabkii badnaa iyo abuurkii la keenay cunto badan baa iman meeshii waa la beeranaya
webigii oo looga faa'iidaystay meeshii dadku caajis ahaayeen hawlkarnimo ama waa la wada hawlgeliya sharciga oo la ilaaliyo nabadgelya ama dhulboobkii baa yaraanaya suuq badan baa haddana la heli oo cuntadii markii lasoo saaro in dheeraada lasoo saaro lasii iibiyo oo wax kale lagu doontay noqon dhulboobkiina wuu yaraanayaa marka saddexdan oo isku jirtana waxay keeni niyaddii oo dadka u dhisanta oo meeshii la dego kadibna macaluushii oo dhammaata ayay keenaysaa marka wixii hore oo dhan negative bay wada ahaayeen wixii oo dhan positive baa laga dhigayaa ujeedadeena hadda aan u dambaysay gaari doono waa inay macaluushu yaraato marka maxaa la qabanayaa weye macaluusha u yaraato waa in afartaa strategy aan gaari doonaa fiiri problem 3 baan soo maray objective 3 baan soo maray strategy baan samaynaynaa hadda marka shaxdeennii oo sideedii ah meeshan taal okay waxaanu nidhi abuur dal joogto ah oo la keeno iyo webiga oo laga faa'iidaysto iyo caafimaadka iskuullada wacan oo la sameeyo iyo maamul wanaagsan waxay keeni doonaan tallaabooyinkan dambe halkaas ka socon doonaan marka istaraatiijiga u horeeya hadda objective 1 buu ahaa istaraatiiji buu noqonayaa markan abuur dalag joogto ah in la helo waa in istaraatiiji uu mashruucani ka dhigto dalagee marka ku habboon waa daraasad kale la sameeyo bariis baa la beeran oo biyo badan baa la heli masagadii baa la iska beeran qabandi baa la beeran waxay abuurkii la heli lahaa istaraatiijiga koobaad buu noqonayaa webiga oo laga faa'iidaysto oo matooro la keeno ama kanaal la sameeyana istaraatiijiga labaad buu noqonayaa in yani caafimaad iyo iskuulo la helo iyo inuu maamulka wanaagsanaado istaraatiiji uma noqon karayo mashruucan waayo waa wax inaga baxsan oo barnaamij gaar ah assumption buu noqonayaa marka halkaasoo assumption soo gelaya dad shaxdii xusuusataan log frameka vertical horizontal interventionka columnka ugu dambeeya assumption iyo risk baa ku jiray labadaa waa in la assume gareeyo labadan qaybood oo idil in ay ama cid kala wadayso ama ay dawlad wadayso in la assume gareeyo wey waayo istaraatiijigan beeraha iyo webiga iyo ku saabsan dadka dalagga loo keenayo inuu markii hore aynu ku soconay hay-adeenu mid aynu qaban karayno maa sidaa darteed haddaan la qabanina dadkii ma joogayaan way qex oo iskuulla iyo caafimaad ma haystaan dhulboob iyo dagaalaha ka jiraya cuntada loo saaraya macnaba ma laha marka ama waa inaynu inagu mashruuci mid lamida garab dhigno oo dabeetana meeshanu project wadnay program uu noqdo mashruuca koowaad iyo mashruuca labaad dee awoodda aan leenahay haddii kale waa inaynu cid ku empower garayno ku howlgelino si ay u qabtaan howlahan haddii kale waa in dowladda ama unitka yare dowladeeda meesha jiraan isna oo ay ballan qaadaan waxaan inuu garab qabanayaan inagu mashruuceena xil baa ka saaran inaynu xataa gacan siino oo la shaqayno waayo ujeedada guud ee overall objective aan gelin doono frameworka labadooda howloodoo hirgala ayaa muhiima ugu wacnaan doono ilaa labadooda hirgalaan waxba inooma soconayaan okay haddaba labadan qaybood ee ah qalab badan oo la keeno iyo abuurka oo la joogteeyo wuxuu noqonayaa project object activities log frameka haddaad xusuusataan dib u yaro noqo activity la qabanayay buu noqonayaa roobabka oon la isku halaynin iyo webiga oo laga faa'iidaysto ama matoorha la keeno ama kanaalaha laga sameeyana activitygii bay ka mid yihiin labadii strategy activitygooda strategy 1 iyo strategy 2 okay maxaa ku xiga marka expect result natiijada ugu horeyseed filaysa marka inaad gaadho natiijada ugu horeyseed filaysa inaad gaadho ayay noqonayaan kuwan marka cuntadii oo badan oo la beero iyo dadkii oo caajisnimadii ka baxo hawl gara ujeedada ugu horeeya dadku ay durbadiiba niyad ahaan la bilaabanayaan okay labadan ujeedo na waxa weeye niyadda oo dadku u dhisanta waa ujeedada aan ku soconay hadafkeeni mid ku dhoweeya iyo suuq in loo helo xoolahoodii cuntadoodii wixii la beerahayay ee adad u hagaajisay marka project objective ku noqonaya purpose overall objective marka period danta guud aynu hawshan oo dhan kala hayno silsilada u sameynay daraasada u sameynay dadkii ula kaashanaynay waa in dadku ay macluushii ka baxaan shaqo helaan oo bariis helaan oo cunto beertaan oo iyagu soo noqdaan iskuuladoodii iyo waxoodii ay nabadgelyo ku seexdaan halkaas macluush kaga baxayaan marka
marka kanina wuxuu noqonayaa strategic. Okay, marka hadda marka aynu log framekeen markii dhisnay usoo noqono aynu hawlihii hadda aynu chartiga strategiga aynu gelinay ayaynu kusoo dabaqaynaa. marka activity baa laga bilaabaya. marka activitieska la qabanayo waa shaqooyinka dhaqdhaqaaqa hawlgelinta la sameynayo lagu shaqo qaybsanayo. waa in abuur joogta qalab joogta la helo mashruuc saa ku dhaqaaqo. ujeedada horeysan gaadhayna cunto badan in lasoo saaro wey. project purpose wuxuu noqonayaa suuq cuntadii loo helo, shacabka in yar la dhistaan oo ay soo noqdaan oo ay bilaabaan inay shaqaystaan. danta guud ee aynu ka leenahay mashruuciina wuxuu noqonayaa dadkii oo macluushii ka baxa. haddaba intaa hawsha log frame kuma eka. marka waxaa weeye si ay macluushii hawsha uga baxaan maxaa cadaynaya objectively verifiable indicators maxaa lagu garan doonaa. waa la tixi doonaa iyadana program gaar wey. yacni dadkii oo dhar fiican kata, dadkii oo cuntadoodii ay soo kabca, dadkii oo maaragtay shaqaysanaya suuqii aadaya, dadkii oo intaasoo saacadood beerahoodii wixii gelinaya. intaas yani waxa lagu garanaya waxyaabahaasaa ka mid. xagee laga heli doonaa marka sourciga laga heli doono informationkani waa halkii reportyada joogtada ee la qorayay. markii hore ilmaha tuulada degan 70% baa macluushanaa. markii dambe reportigii 3 bilood wuxuu soo saaray markay cuntada heleen in 60 macluushi noqotay 50 40 20 reportigii joogtada laga heli. waxaa laga heli dadka shacabka baa la warsan oo loo tagay oo bidhaantoodii la arkaya oo iyaga qudhoodii baa suuqyadii yaa jira oo beerihii baa lasoo arki karaya oo yani waxaa soo cadayna oo warbixintii oo qoraalana ay taalaa lagu helaya. assumption maxayna assume garaynaynaa. marka wayna arki doonaa waxaynu assume garaynaynaa. haddaba maamul wanaagsan oo dhisma oo sharci ku dhisma iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii oo samaysma waxay noqoni mashruuceena assumptionkiisii ay noqon intani. ma arkayso yaayo mashruucii inaguma qaban karo. haddii waan qabanaynaana waa inuu program isu bedelo. waa hal objective uu mashruucu gaari karaya. haddii laba objective laska rab dhigo oo aan isku taad ahayn oo aan sidii hadda kan isku soo dhacayn abuur iyo qalab joogta laba objective bay ahaayeen. marka activity bay noqdeen. hadda strategy koowaad iyo labaad baynu activity saddexaadii waxay noqonaysaa in maamulkii la wanaajiyo. marka la wanaajiyana natiijada waxaa weeye qaxwi inuu yaraado oo nabadgelyo timaado. kadibna dhulboobkii la joojiyo dadka dhulkooda ku kalsoonaadaan in ay dhaqan karayaan. dhinacana assumptionkii baa galahay. marka saasaa mid walba objectivekii sidii loo cadayn lahaa iyo wixii lagu cadayn lahaa raadahaa mid walba lasoo saari kan iyo kan. hadda maanta waxaynu sheegnay wax yar oo findhici laho ka mid ah project cycle managementiga. log frameka ujeedadiisa guud siday muhiim u tahay in la fahmo oo loo soo gaabiyo unbay ahayd. log frameka qudhiisa wax badan maynaan ka sheegin waayo horizontal interventionka oo idil waxba kamaynaan taabanin. mar baynu dhammaystiri doonaa laakiin daraasado badan baa ka horeeya. waxaa matalan ka mid ah mashruucan si loogu sameeyo monitoring waxa gelaya oo loo control iyo evaluation wax ka soo baxaya oo la ogaado inuu wixii lagu talagalay yahay. waxa la yiraahdo relevance, efficiency iyo effectiveness in la soo saaro. yani qodob walba sida uu activity walba soo relevant uu yahay iyo expect result ugu horeeya say u yihiin maaragtay efficiency iyo effectiveness. waan qaybo badan baan eegi doonaa. waxaa laga maarmaan noqon doonta markaa policy support in loo helo waxan hay'adihii dowladdii iyo unity shacabka inay kugu caawiyaan oo waxa ay kugu caawinayaan uu sii qoran yahay ballanqaad cidina inay ka bixi kareen in la helo. appropriate technology dadkaas farsamadan ay beeraan u keenayaa qalab iyagu ay dayactiran karayaan oo locally la heli karaya farsamadiisa spare partigiisa wixii in loo helo wey. institutional management capacity waa in la helo. macnaheedu haddii dowladdii ay assumptionadii kaa caawinayso waa iyadii ka kabtado mashruucii aad ku tarakashid saad u kabi lahayd budget ha noqdo ama talo
hay-ado kale haddii wixii wadaan in la iska kaashado oo laga wada shaqeeyo wey. Economic financial viability waxaan dadku inay soo saaran doonaan wax dhaqaalahooda wax ku taraya oo lacag ka helayaan oo dhaqaale ka helayaan cunto ka helayaan la helo. Social cultural and gender issue baa jira, yani dhaqanka inuu waafaqsan yahay waxani dadka haweenku ay cod ku leeyihiin ka qayb qaadanayaan in la dulminaynin. Environmental protection haddii la yiraahdo beeraha la beero oo geedihii oo dhan dhulka inta laga waxeeyo dhamaad guuro ma aha, waa in geedihii qudhooda sidii loo hagaajin lahaa oo aan wax loo yeeleen in maaragtay laga hadlo wey. hadda marka intii aan sameynayna waxaan weeyaan kaliya 4 analysis baan sameynay oo aad u gaaban oo dhib yar: stakeholder analysis, problem analysis, analysis of objectives iyo analysis of strategy. man kasoo yara dhex saar loo filanki gelin marka qaybo fara badan oo aad muhiim u ah baan arki doonaa. qofka si loo xjeedanayna ereyadaas uu gelin doonaa Google-ka iyo library-yada uu ka raadsan doonaa. halkaas maanta cashirkeenu ku eegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.